بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فيه مسائل وحين كسر حجري باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله marka fiihi masaa'il masalada koobaad tafsiiru alawthaani awthaan waxaa loo yaqaano oo la fasiro waa inagii soo maray kullu maa cubida min duuni illaah in wathan la yidhaahdo laguna magac dhabi karo marka ama sanam ahaan ha noqdo ha sawiraado ama qabri ha noqdo ama geed la weyneeye ha noqdo ama macatab iyo saliib la xidha ha noqdo kullu maa cubida wa cudima yacni min gayri sharcin ama ilaahay sukadii la weynay ama la caabudo dhan ayaa loo yaqaana awthaan athaaniya masalada labaad tafsiiru alcibaada axaadiisii iyo aayadihii soo hormaray waxay fasirahayeen cibaado waxaa loo yaqaan cibaadaduna waa atadallul adoo isbihaanbihiyo isdulleeya allana u khuduuca khawfan waraja'an wamaxabatan watacdiima saa darteed buu nabigu yihi allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbadu min duuni illah idan haddii qabriga la weyneeyo ama laisu bahaanbihiyo ama maxabo zaa'id oo dheeraad ah qabriga loo muujiyo idan waxaa weeyaan taa iyada ah cibaaday noqonaysa athaalitha annahu sala allahu calayhi wasalam lam yastacid nabigu kamuusan magangelin ilaa mima yukhaafu wuquucuhu waxa uun laga baqayo dhicitaankiisa mooye wax kale rabbi kamuusan magangelin macnuhu waxaa weeye nabigu markuu leeyahay allahuma laa tajcal qabrii wathanan ishtada gadab ullahi calaa qowmin ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yacni magangalkaas iyo cambaarayntaas oo dhan ba waxay ku aadan tahay nabigu waxyaabaha uu ka baqayo ummaddu inay ku fasahaado diintana ay kaga leexato ayuu alla ka magangelaya ummaddana oga digahayay alraabica qarnuhu bihada itikaada qubuuri alanbiyaa'i masaajid waxaa ku cad meeshan ayada ah nabigu inuu la xidhiidhiyey itikaaduhaa masaajid waa sababun lijaclihaa awthaanan maxaa yeelay itikaadku wuxuu ummadda u jiidahayaa in ayadii wathaniyad laga dhigto sanam ay noqoto idan qarnuhu bihada nabigu xidhiidhintuu la xidhiidhiyey arrintan oo ah in qubuurta masaajid laga dhigto nabigu wuxuu la xidhiidhiyey inay awthaan noqonayso allahuma laa tajcal qabrii wathanan yacni qolyaha ilaahay u cadhooday ama u necab yahay waa aladiina yatakhiduuna alqubuura masaajid idan wathaniyadii iyo shirkigii ayuu nabigu wuxuu la xidhiidhiyey itikaada qubuuri masaajid ama wadaadana waxay ku fasireen qarnuhu nabiga xidhiidhintiisa bihada cadhada iyo ishtada gadab ullahi calaa qowmin ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid buu nabigu isku xidhay cadhadii ilaahay iyo qubuurtoo masaajid laga dhigtuu nabigu xidhiidhiyey wuxuuna u xidhiidhiyey qabrigoo masjid laga dhigto lagu ag tukadaayey aakhir wuxuu kuu geynhayaa inaad sanam iyo wathan qabriga ka dhigatood ilahay keyrkii caabudo alkhaamisa dikru shiddati algadabi min allah ilaahay cadhiisa daran oo la sheegay baa meesha ku jira cadhada ilahay daranna waxay ku jirtaa in ilaahay keyrkii xaqdarre lagu caabudo ama qabri laga dhigto masjid iyo meel lagu tukado iyo masalle waxaasoo dhan ba waxay keenaysaa ilaahay subxaanahu watacala cadhiisa daran inay kugu dhacdo asaadisa wahya min ahamiha masaa'ilkii midda u muhiimsan weeye u qiimo badan waana waxay ku saabsan tahay macrifatu sifati cibaadati illaati alati hiya min akbar alawthaan yani masaladan lixaad waa masale muhiim ah yacni allaat sanab buu ahaa la caabudo cibaadadii marka laata la caabudi jiray waxay noqotay in asaga agtiisa lagu nagaan jiray oo la dul fadhiisan jiray qubuurta marba haddii la dul fadhiisto fadhiisigaa macnihiisu waxaa weeye ilaahay keyrkii baa la caabuday sanamkii waa la caabuday wey macrifatu sifati cibaadati illaat allaati cibaadadiisii tilmaanteeda oo la bartaa meesha ku jirta laata waa la caabudi jiray macnaheedu waxaa weeye yacni waa la dul fadhiisan jiray waa lagu nagaan jiray waa lagu dhafri jiray waa la barakaysan jiray wey allatii laato oo hiya min akbar alawthaani awthaanta midda u weyn ahayd maxaa yeelay falamaa maata famaata facakafuu calaa qabri baynu soo maray laata nin buu ahaa sawiiq iyo raashin u sameeyey carabta kadib markuu dhintay qabrigiisii baa la dul gawrirsaday oo lagu gurdamo la dul fadhiisto oo lagu dhafro lagu dhaxay bay ahayd idan cibaadadii laata la caabuday waxa u weyn wuxuu ahaa in qabriga la dul fadhiisan jiray oo la barakaysan jiray oo lagu dhixi jiray oo la laazimi jiray idan qabriga marba haddii la dul fadhiisto oo la laazimo taa macnaheedu waxaa weeye qabriga waa la caabuday wey
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. اللات صنمك اللي هذا أسل كيسينه أها نين وناكسن ودنتي قبر جيبا كوجرة. الثامنة أنه اسم صاحب القبر. اللات تضاد مقشو وقبر نينكي لها يكوجري مقعي سوي. إيه وذكر معنى التسمية. إيه مقع لاتا وحلو بحيي حلو بحيي كان يلوط لهم السويق. سويق يا بورش بسكوها بين جري انتو الصلاه اي هوشا u diyaarin jiray marka macnaha allaat wuxuu ka yimid amal uu sameyn jiray fal uu asagu sameyn jiray ayaa loogu magac daray. التاسعة لعنه نبي لعنadii baa ku jirta زوارات القبور dumarka badiya ee qabri booqashada badiya waa inaga xadiis badneed soo maray. العاشرة waxaa kaloo ku jira لعنه nabi lacnaday man asrajaha ruuxa dabka u shida ama faynuusta u shida ama ifiyo qubuurta ruuxa qubuurta leydka u shida ama dabka ka dhax shida ama laambad iyo faynuus u shida iyo dadka ninka noocaas malcuun wey waxa xadiidkeenu soo maray ala ikhtilaafin fi sihhatihi. idan intaasoo dhanba waxaa weeyaan waa in qabriga laga fogaado. baabu ma jaa fi ximaayati almustafa janaaba الtawxiidi wa saddihi kula طariiqin yuusilu ila الshirki. wuxuu baab yahay baabkana inaad barato baabu ma jaa fi ximaayati almustafa nabi maxamed ilaalintuu ilaalinhayay ama dhowrhayay janaaba الtawxiid ay jaanib الtawxiid dhanka tawxiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aad buu ilaalin jiray. iyo wasadihi nabiga awdiduu awday ama jufay kula طariiqin waddo kasta u awday طariiqaasoo yuusilu ku gaadhsiinhaya ila shirka ku gaadhsiinhaya. nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi si aadaa wuxuu u ilaaliyey dhanka tawxiidka iyo caqiidada wuxuuna nabigu awday oo xidhay waddo kastoo shirki kuu geynaysa. yacni abwaabta aynu soo maroo dhanba baabkaasay ku saabsanaayeen laakiin hadda baabka si gaar ahaaneed wuxuu ka hadli doonaa guluwiga ku saabsan nabiga jasadkiisa iyo jismigiisa ku saabsan iyo waxa asaga khuseeya ayuu aad baabkan uga hadli doonaa. laakiin ximaayatu الtawxiid wa siyaanatuhu iyo walxifaadu cala الtawxiid abaab badan baynu kusoo maray. iyo وqول الlahi taعaalى laqad jaءaكم rasuul min أnfusiكم عaزيiز عalayhi ma canidتm xariiص عalayكم bاlmuؤminiina ra'uuf رaحيim. idan laqad jaءaكum waxaa idin yimid muslimiinay rasuulu rasuul baa idin yimid oo min anfusikum idinka idinka dhashay. waa rasuul carbeed oo qureysheed oo wiilkiina awey ma aha nin gariiba meel kale ka yimid ma aha nin xataa dhaqan idinku ah waa nin dhalad ah oo idinka dhasho sulbigiina awey. rasuulkaas casiizun waxaa ku adag casiizun waa sifa lirasuul sida raajixa ciraabkan la waa jiraa rasuulkaasoo casiizun ay ku adagto ay dhibayso calayhi dushiisa maa canidtum waxaad ku rafaadaan ay casiizun calayhi canatakum wa mashaqatukum wey wixii idinkeedan dhiba aakhiriya adduunba nabigu waa dhibaysa. yacni waa nabi naxariis badan idin danaynaya idin la socda idinka fikiraya idan wuxuu awood iyo caqli iyo cilmiba lahaaba idinka idinku bixinaya. waxaa nabiga dhibaya shay kastoo idin dhibaya saa darteed buu nabigu leeyahay fududeeya diinta idin fududaynaya wax kasta buu qadanaya. idan nabigu sal ly slam inuu yahay yani qaybta hore laqad jaءakum rasuulu min anfusikum waa taskiya iyo waxaa weeyaan nasabka nabi maxamed oo la sugayo wey salawaatu ullahi wasalam nabigu waxaa ka sugan inii kharajtu min nikaaxin walam akhruj min sifaax. xadiidka xasanka anugu nasab nikaax baan ku dhashay carabtu way yaqaaneen dhaqamo xun oo zina ay yaqaaneen oo xataa iskaga wiil dhigan jireen laakiin nabigu ma soo marin. abtirkiisa dheer ee nabi ibraahim tegaya intii awoyaashii iyo farcii iyo ka farcama oo dhan ba kulli waxay ahaayeen dad nikaax xalaala isku guursada oo nabigu ma soo marin zina iyo wax noocaasa isirkiisa iyo abtirkiisu mari maayo. ayib jacfar ibn maxamed albaqir baa jacfar saadiq baa la weydiiyo le ka warna aayaddan wuxuu yihi lam yusibhu shayءun min wilaadati اljaahiliya. nabi maxamed sal ly slam qaabkii jaahiliya isku guursan jireen ama u tarmi jireen nabigu shuqul kuma laha hawshaas oo dhan bay aayaddu tilmaamaysaa oo ka hadlaysaa. haddii la yidhi nabig sal ly slam waxaa dhibahaya waxa idin dhibaya iyo dhibkiina nabiga dhibaya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi intaa waxaa lasii dheeraysiiyey ra'uufun calaykum bilmuminiina ra'uuf raxiim bilmu'miniina ra'uuf raxiim. ayib xariisun calaykum waa idinku dadaalhaya hidaayadiina iyo wanaaggiina ku dadaali wamaca dalika asagoo idinku dadaalhaya hidaayadiina iyo waxqabadkiina iyo noloshiina diineed ku dadaalhaya haddana waa rasuul naxariis badan oo damqasho badan oo dhimrin badan wey. ayib
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا هكي لننا وهكذا بيوتكم قريهن قبورا قبور هكذا قريهن يوسن قبر نقول نقول قال قبرك قرآن لغما أخريه لغما تكده صلاة لغما دوي قبري عباده وكلا تكوريه قبري عباده وطبيعي دغح لسكما أقوله إذن روح هدو قريك سكو عباده يسن واي أو صلاة كو تكن واي أو قرآن كو درين واي قريك قبري بنقول قريك كو عباده يسوي صلاة فرض كجماعة مساجد كلا سؤال سنوين كذا تهجد كذا وتر كذا قيام الليل كذا قرآن أخرس كذا جلادي هذا أخرس قريك إنها تكو أفضل ربا قريك بركيزه لا دومت هدي قريك اللي جوايا قرآن أخرس عبادة اللي جوايا قريك معنا هذا وحوي وحول نقضي قبري نبي وهوشو كان لي عكسي كذي بنقول لقنا إنه وين تقنا قرآن قبرك لا أدنى وخلاوة قبرك لا أدا وعبادة قبرك لا أدا علوم الريه بالحياة فديان قبورتي فديان قبر هبل بان كسو بحاني أفرتن بري بان قبر هبل فديني أسأل كل رب دونيني أسأل هريرك وجود عينيني عذر رضا إياها ولها سن أفديني وفير صدها نبي ونحوله صلوات الله وسلام عليه يان لور دوانيا قريهن قبرها كدغاننا قبرغان لو عباديسنين او لو قران اخرين او لو اوغلين او كاسا ولا تجعلوا هكيلنا قبري انيغا قبري نبي محمد صلوات الله وسلام عليه عيدا ما لو كلمه لو نقضه عيد اما وعيد مكاني اما وعيد زماني تا معنى waxa weeye عيد واسم لما يعاد اليه او يعود waxa loo noqdo meel hada ku noqoto ciid bay ku noqoto meel usbuuciba ama sanadkiima ama bil kasta aad tagto haday jirto waa ciid makaani ah ciid bay ku noqoto طيب مساجد waa ku noqota laakiin aad ku noqoto lagu fasaxay sharciga ku amrayba inaad ku noqoto oo lagu ogoliyo haday tahay ciid zamani ah oo sanadkiiba soo marta waa ciid zamani ah idan nabi wuxuu qabriga ciid yaan laga dhiganin xillo go'an ayaan la imanin مكان هانا يا لغو نقنين نقد كا لغو نقن هاي ee lagu kulmahay ama xilliga go'an loo fiirin haye aad hayay waxay keenaysaa aakhir in la weyneeyo tacliim usan mudnayn kadibna uu shirki ku geeyo la caabud oo lagu galmaysto lagu dawaafo akiisa la fariisto lagu duceysto aaman cibaada la aaday noqonaysa nabigu waa diidan dhan kasto nabigu waa hebel waadii ee wax lagu sheegi jiray wuxuu wax ku sheegay hadii lagu dili jiray anu ku dili maayo hebelo hadii wax lagu sheegi jiray wax ku sheegay hadii laakiin lagu garaaci jiray anu ku garaaci maayo idan hawshu waxa nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi dhan kasto ka amar inta soo qaab wax lagu sheegay inta wixii ka badan waa in gacan lagu la tago tayib inta wixii ka badan waa in gacan lagu la tago taasna awood tabarteeda ma hayn marba laakiin leeli door hada gorno way idahan jawaab garanaysa wasallu alayya igu saliya nabi wuxuu aniga ciid qabrigan la soo aadin maxaa laga soo dooni meel la fadhiyo wasallu alayya aniga igu saliya hal hadith oo asaxay oo nabi uu leeyahay qabriga booq lama hayo hal hadith oo asaxay oo nabi uu leeyahay salawaatullaahi wa salaam qabriga hal la booq soo heli maysaan warcad way laakiin waxa dhooban ahadiith nabi uu leeyahay qabrigan loo dhawaani yaan la soo agmarin yaan lagu soo noqonin yaan bartimaad laga dhigan yaan loo dabaal dagin oo dhooban yihiin waxa xadiis tilmaamay oo dhan nabi maxamed qabrigiisa in la tago ama la ziyaarto ama lagu noqdo ama marka xaj la tago la siimar kulli waa dhaif jiddan iyo mawduuc iyo baatil way idan hawsha iska ogow wasallu alayya yusalli oo salliga dheeraa ibraahimiyada taqaaniinada ku tukataan daldala fa inna salatakum saladinu tablughuni wa isoo gaari haythu kuntum meesha joogtaan ama North America joog ama China taagno ama ras casri ras kamboni taagno ama darka dhowr joog aday ku taala meel ka soo joogto salliga nabi maxamed aad ku saliday waa la gaarsiinaya see nabi oo lagu gaarsiin nabi wuxuu sheegay malaa'ig baa jirta sayaaxiin ah oo adduunka wareegta antonion dhaadheerna ay ku xiran yihiin tabaqdiya dhayaa u gudbay nabi ku saabsan nabi maxamed oo hebel oo halkaas jooga kugu salinay saacada nabi waa loo gudbinaya waxa markii inaad orado oo qabri nabi xusii istaagto wax faa'iido ay leedahay lama arko
salli miyaad doonaysa halkan ka salli salliga badi nabigu waa loo geynaya inaad nabiga qabriga kusoo noqnoqotod ku wari asagaa kuu diiday amarkiisa qaado amaa salliga soo maha salliga yaan lagaa badinin iyo salaada nabi maxamed ayib xadiidkan sheekhu waa tilmaami doonaa waxaa soo saaray axmed abu daawud ibn bayhaqi ibn abi shayba iyo bayhaqi sidoo kale wuxuu kusoo saaray fi shucab wa fi xayaat alambiya nawowi wuxuu ku saxiixiyaa kitaabkiisa adkaarka xaafid ibn xajar kitaabkiisa nataaj afkaar fi takriij axaadiis aladkaar ibnu taymiya asna waa taxsiiniyey ayib nabigu salawaat ullahi wasalam abu dar baa ka warramay wax kastoo inaga ina wanaajina wax inoo taray nabigu waa inoo sheegay wax kastoo ina dhibayana nabigu waa inooga digay abu dar wuxuu leeyahay nabigu wuxuu odhan jiray maa baqiya shayء yuqaribu min aljannati ilaa wayubaacidu min annaari ilaa waqad bayantu lakum nabigu wuxuu yihi wax hadhay oo diin ah ood naar kaga fogaanaysaan ama aad janno ugu dhawaanaysaan hadduu jiro nabigu wuxu uhi waa idin caddeeyey shay kasta oo diinta ku wanaagsan ood janno ugu dhawaanaysaan ama diin ahaan ku xun ood naar ku gelaysaan nabigu waa idin cadda waa idinka digay xumahana waa idinka digay samahana waa idin faray mar labaad wuxuu ley abu dar tarakana rasuulu الlah wma طaa'iru yuqalibu janaaxayhi fi اlhawaa ilaa wayadkuru lana minhu cilma wuxuu leeyahay nabi maxamed sal slam wax kastoo adduunka joogay cilmi uu naga siiyo mid lagu cibro qaato mid lagu dhaqmo mid la adeegsado mid lagu khidmaysto mid cilmi laga baadho wax kasta nabigu waa noo caddeeyey idan tarakana cala maxajat albayda waa dacad oo qoraal ah oo toobiye ah oon luuqluuq lahayn iyo meel god oo boholod ku dhacaysay midnaba aan lahayn buu nabigu ka tagay laakiin waxaa weeyaan barashadii iyo ku dhaqankii umbaa laga rabaa yaan lagu wareegeysanima hawsha ayadaa la iska ilaaliyo qubuurta qabriga nabi maxamed salawaatu khaas ahaan waa ka daran yahay qubuurta kale haddii aad dhowr bay ku noqnoqoto oo soo ziyaarato hataa culays saasa ma sii laho laakiin qabriga nabi maxamed waa ka daran yahay si gooni uu nabigu culays ugu bixiya qabrigiisa inaan loo soo dhawaanin aan la agmarin ayib qubuurta guryihiinana yaan qubuur laga dhigin weeye idan xadiidka marka laa tajcaluu buyuutakum qubuura macno weyn baa ku jira macnaha weyna ku jira waxaa weeye saxaabadu waxaa ka daadegay oo aaminsanaayeen oo ogaayeen qabri iyo cibaado inaan lasu ogolayn sidaa darteed buu nabigu ugu halqabsaday oo u yidhi guryihiina qubuur ha ka dhigina hadday saxaabadu aysan ogeyn qabrigu inaan cibaado loo ogolayn aysan ogeyn nabigu kuma halqabsadeen wuxuu odhan lahaa qubuurta waxba yaan lagu akrin yaan lagu cibaadaysanin guryihiinana ku cibaadaysta bay noqon lahayd laakiin nabigu xagguu ka wareego wuxuu yihi guryihiina iyo meelaha degan tihiin hooyaadkiina ha ka dhigina qubuurtoo kale idan jaalka waxaa ka garan nabigu maxamed sal slam iyo saxaabadiisu iyo ardadiisu inuu ka dhaadhiciyey qubuuri inaan cibaado iyo qur-aan loo ogolayn sidaa darteed buu nabiga ugu halqabsaday haddii kale waxaa la odhan nabi maxamedow goormaaba noo sheegtay annaga qubuur inaan cibaado loo ogolay maxaad u leedahay guryihiina qubuur ha ka dhigina macnaha marka dhambaal horreeyey iyo cilmi horreeye weeye oo daadegay maskaxdooda imaankooda fadhiistay saasaa lagu sargoosanayay taa markayan kaa hoos bixi rawahu abu daawud baa xadiidkan wariyey biisnaadin xasan waruwaatuhu hiqaat ruwaaduhu waa hiqaat cinda bacdi ahli cilmi ama sanadku marka la fiiriyo cala ikhtilaafin fiihi waa xadiid xasana bal saxiix wey bishawaahidi marka la fiiriyo wa can caliy bn xusein علي بن الحuseين بن أبي طالب بن علي بن حusein wey علي بن الحuseين بن علي بن أبي طالب waa ninkii زمن الcاabidiin loo yaqaanay taabiciga aad u qiimo badnaa أنahu عalي ra'aa wuxuu arkay waa dhashii faaduma ay dhashay faaduma bint محamed عalي waa ina xusein xuseinna waa ina cali بن أبي طالب idan haddii cali بن طالبna waa awowgii baa wey wiilkan yarka cali زمن الcاabidiin loo yaqaanay qiimaha badna ka caabidka ah أنahu ra'aa wuxuu arkay عalي rajulan buu arkayo yajiu imanaya ilaa furjatin meel duleesha furjadu waa meel daaqad shubaakad oo kale wey daaqad guriga caaisha ee nabiga ku xabaallaa ee xidhnaa ilaan guriga caaisha iska lahayd daaqadii uu lahaa oo duleeshu marka nin baa halkaa iman jiray meel kale uu ka gala male albaabku waa xidhan yahy oo qolku waa xidhan yahy waa idin sheegay waa intaan derbiga labaad aan la saarin wey derbiga labaad intaan la saarin idan meesha daaqadee duleeshu yuu soo istaagi jiray halkaasuu yihi nabigaan ka fiirsanhaya meeshaasu soo istaagahaya anahu ra'aa wuxuu arkay rajulan yajiu imanaya ilaa furjatin meel duleesha ama shubaakad ama daaqad kaanad ahayd cinda qabri الnabiyi nabi maxamed qabrigiisa u dhoweyd qabriga guriga ku dhex yaala daaqad u dhoweyd
oo darbigii ku dhex taalay buu iman jiray meel furja ah fayadkhulu fiiha meesha xulubka ama docda ayuu geli jiray fayadcuu ku ducaysan jiray halka intuu galo ayuu ku ducaysan ilahay ku bari jiray fanahaahu cali ibn xusein baa u diiday oo ka reebay wuxuu uhi jooja hawsha ma banaaneen wa qaala wuxuuna cali yidhi ibn xusein alaa uxadiثukum maa idinka sheekeeyo o idin tabiyo xadiiثan xadiiثon samictuhu min abi aabbahay aan ka maqlay aabbahayna hadda waa kee aabbahay wuxuu ujeedaa waa xusein xusein way aabihii can jaddi awowgay inuu ka tabinhayo oo cali ibnu aalib ah ilaa ninku cali ah waa ina xusein xuseinna waa ina cali ibnu aalib wey marka saas way marka waa nabi maxamed baa marka u ah awow hooyo awow aabbana waxaa u ah cali ibnu aalib warkiisu halkaasu ku dhan yahay idan marka ayadii aabbo faatimo ah yaa dhala hadi nabigaa dhalay marka waa nin saa u barakaysan wey cilmiga ku fadhiisanaya idan marka annaga aalu beyt ah oo hawshan kaa naqaanine xerow meesha ku rafaada ina ka baxbadho meesha banaanka istaag ayib ma annaga naga xitaa nabi maxamed dhashiisi baanu nahay banaanka tagba cilmi aan ku siino can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi laa tattakiduu qabrii ciida qabrigayga meel lagu soo noqnoqdo ha ka dhiganina ciid ayib meel lagu soo lalaabto ha ka dhiganina walaa buyuutakum walaa tattakiduu guryihiinana ha ka samaysanino ha ka dhiganina qubuuran qubuur oo ku tukado ku cibaadaysa guryihiina wasalluu calaya anigana igu salliyo ilaahay ammaaniya naxariis ii weydiiya fa ina tasliimakum salaantiinu la yablugunii tasliimku waa isoo gaarhayaa ayna maa kuntum ayna kuntum meel kasoo joogtaan warku waa isku dhammaaday waxaba marka meeshan luxulubka ah iyo daaqadan ha ka dhicine waxaad yeelaysaa aayar buuri gurigaada aad ku cibaadayso nabigana ku salli yani ufirsa ahlubeytka say oga saxayaan tawxiidka lagu khaldamahayo war iska dhammaaday wey rawaahu waxaa wariyay xadiidkan adya almaqdisi baa wariyay fi lmukhtaara ku wariyey adya almaqdisi waa nin imaam qarniga lixaad joogay abu cabdillah maxamed cabdilwaxid baa loo yaqaan alxambali ayib xadiidkusuna wuxuu kusoo saaray adya raqamka 428 waxaa kaloo xadidka atarkan xadidka warinaya ibn abi shayba bukhari fi tarikh ismaaciil alqaadi fi fadl salaati cala nabiy ibn abi caasim fi fadl salaati cala nabiy asaguna abu yacla waana xadiid xasana ama saxiixa bishawaahidi cala aqali taqdiir idan marka tawxiidku mar hadduu marka warasadaada u dhex fadhiisto waa ku difaacahaya idan ninkii intuu meesha godka ka dhacay nabiga ag fadhiyey lahaa aad malkan ku cibaadaysata nabigan u dhawaatid wuxuu ihi ukaad jooji hawshan lama ogolo markuu muran kale wuxuu ihi xadathanii abi xusein ah can jaddi cali ibn abi aalib can rasuuli illah war kooban wey diin yaa laga qaataa nabi maxamed diinta yaa kasoo tabiyey ardadiisa oo saxaabo ah saxaabadii yaa ka tabi taabiciin soo maha anaa taabici ah aabbahay xuseinna waa saxaabi awowgii calina waa saxaabi kale idan labadaa dariiqaan u maray baan diintan aan ku haya wuxuu ihi meesha ha ku rafaadeen ha ku ganacgoyn o dhan iskaga tag bidca iyo shirki ba wasaa'il shirki baad ku jirtaa ka fogow idan wixii intaa ka dambeeya hadee waa taqaanaa soomaalidu dhibka haysta waxaa weeye aalubeytka baad arkay iyagoo sheegahaya xataa abubakar maqli maysid xuska abubakar weli soomali ka maqasheen weligiin intaad soomaali dhex joogteen xuski abubakar maydan maqal walaa xuski cumar bin khadaab maydan maqal xuski abbay faatime iyo abbay city iyo waad maqlaysa xuski xasan iyo xuseen baad maqlaysa laakin maqli maysid xuska ahlu badrin wa baycat ridwan abadan waxaadan maqlaynin oo kale xuska abubakar walaa waxaadan maqlaynin xuska cumar midna maqli maysid wax o dhan waxaa weeye soomaalida marka xoogow tashayuc baa ku jira caamada soomaaliyed waxaa ku duuban shiicannimo acaajimtoo dhan bay carabta roon dadka acaajimtoo dhan hawsha bay ku duuban tahay waxaa ka calaacalay axmed shaakir kitaabkii tacliiqaadku ku leeyahay rawda nadiya arawda nadiya fi tacliiq fi sharx calaa dur albahiya ayuu ku caddeeyey marka waxaa weeye hawshaa la iska ilaaliya taa macnidu ma aha haddii xasan iyo xuseen baa la xusan cumarna ha la xusa ma aha ee waxaan leenahay idinkoo horaanba sii kharibna oo tashayucba galay bad haddana saxaabadii kala xigsateen waxoo dhan ba isu keeno waa baatil weeye balcan baa cole hal bacad lagu lisago waxba alla ka aabayn maayo waa in laga fogaado fiihi masaa'il alأulى tafsiru aayati bara'a suuratu bara aayaddii ku jirtay oo la fasiray walaqad jaaءakum rasuulu min anfusikum caziizu عalayhi ma canidtum xariisu عalaykum
بالمؤمنين رؤوف رحيم طيب dadaal marka dheerado nabigu ku jiro ilaahay uu galiyay iyo naxariisu rabbi galiyay iyo damqashi iyo nugayl xagga muslimiinta rabbi uu galiyay ayuu idinku naxariistay naxariistu idin naxariistay waxa kamida inuu shirkiga la dagaalamay wadiiqo kasto idin geel laha uu awdo hor istaagay waxa wanaagsan janna ku mudanaysa uu idin sheegay wadooyinka naar idin ka fogay waa min xirsihi ala diin iyo warafati wa rahmatihi idan حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين تكلوا جار مشكل الهرمري رؤوف رحيم بالمؤمنين بأهيد ترتيب أجنومي ما كان الله فيري لكن هذا وحالي بالمؤمنين تقديم بالقسمي رؤوف رحيم مؤمنين ده كلوا بالنبي قلنا حريستا ونا دم قذا أما قال هذا قاشان كان الله ضروري فيها لقد لنا هي وكاز وركوز قاعدين الثانية إبعاده نبي قال فوقينتو فوقيه بمشي كتشرة أمتي سو كفوجي عن هذا الحمى سيرها بكفوجي سيرها شركة ونبي قوم كفوجي أما خبري سوحة كوب صاب سمو نبي قوم كفوجي لكن حتى هذا حمى الشركة وي غاية البعد فوجين أما فوجا شكي وحل ليرا نبي قوم إن بدن بكرة دجالمي مسلمين تا إنه القبور إيه أوليو إيه قبر كور جيستان أما كأقدر وادان حفاظ نبي أسوق إلى لنا يا دورية سيرها دينتا أما توحيد إذا مرك قبور إسكي إلهي محايا لو قبور وحال إسكي إلهي شركي وكبدا دون ذكر دعي وحوءها الغلو في الصالحين وفي قبور الأولياء وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا وإنك صوم الري إن يرجع شنطة أهين أولياء علماء وناقصا والله حبالي كده من قبر اللود يقي لغو ضوافي لا أقدقي إلى واجد من العابدي أصنامنا إن نقدين عرنا يسيقات مركا إسكا إلى لوي وش أيضا الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته وحكتر آيات إن لا شيء وإلهي مقعد بوت المامي حرصه علينا محمد ذلكم مدى كد ذاله هي يا ورأفته دم قشر أمد ودن قن هي يا ورحمته نحريص أمد والنبي قلنا حريصا هي طيب الرابعة نهيه نوح كسي ما ويدي نوح كوشة قد ويدا بيسمع ورنجرتي يعني تلضو يعقل علم جوا شيء قال أول لكن حيو ناد بريس قاعد الله قشطه أم حيو مالين شاه كابحية أما لعي جس ناد وين بلغيا طيب لكن رأي الصحن يدين ينصيحة نمكسي جاي واسكيرتها دون هذا ما أنت بل والوجوك واللجوين بريها أبغى طيبة هذا صحن بابا كركار كلوجوي ده أنا والقصي خربها هي الرابعة نهيه نبي الريبد وما ذكر ريبد بكوجرة عن زيارة قبره زين الله بوقضون نبي ما ذكر ريبد ما مطلقا بقول ريبد مايا على وجه مخصوص سيجر جار أهانيد إن الله بوقضه يبي نبي ما ذكر ريبد وام حي سيدا جار أهانيد نبي يقول دينها إن لقوا نقضه إن لبضيه إن حل معين الله قبته إن الحج كاستمك أده وقصد دبا وعيد بنقون هي طيب إن الحل جوان قصته إن الكوبا طبق قبري وممنوع لأنه لا تجعلوا قبري عيدا بوجلها هي إذا ما كتكرر يا تكرير كافر أبدا يا تكرار كافر أبدا عيدني وكأنا يا مركز كفبو طيب هو دوامي مع أن زيارته ولبا أيضا زيارة النبي محمد قبر إلا بوغداء من أفضل الأعمال من أفضل الزيارات وي قبورته إن لبوغ صمب بنايها سؤال لجماعة لما كان يروح مسلم بوغته ويدعو عيسو دمنا في ربي ويدي سؤالون أكو عبرقاتها قبر النبي محمد نبي حوري جوجيك هي أجرك حتى كه اللي هيدين بنانك إنك تشوفه محايا لو وسيلة من وسائل الشرك بنقون دونا وتكون نقون دونتان عيد بخديجان دونتان كلايتم بنقون دونا إذا سأنت أود عن شر خير وحكومية ليه شر توكاوي عرفت الشر الله للشر لكن للتوقيه إذا هو من باب سد الذرائع قطع وسائل الشرك ورمى ما يشاء كتير إذا من أفضل الأعمال وحوجة من أفضل العمل أي من جنسها أعماشها زياراتك وحقبور لبوغضو أو خير بدن قبل أن محضور لبوغضو طيب لكن نبي جوادي إذا محور يستاجي كبق هاي إن المسلمين تكحد قدام قبر جيسة أما كن نقضان أما عيد كدقتان كيف فوقوا مركوا أي هاي طيب مركز ست طبعا وأنت المسجد كيس أقصد مسجد كالنبي محمد وتكتو كتو وتكون عبادة يسوي ست طبعا مركز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه طيب
inaad meesha ilma ku duugtay iyo aad nabiga barida gacmaha taagto yaa rasuul allah aad tiraahdo hawsha iyada shaabig bay u baahan tahay ayib alkhamisa nahyuhu nabiga reebid ummadda ka reebay can اliktaari in la badiyo can الziyaara ziyaarada la badiyo ziyarada qabrigiisa in la badiyo nabiga ummadda u diiday asaadisa xaduhu nabiga caraabinta ku caraabiye muslimiinta ku jira ama ku gubaabiyey cala الnaafilati salaada sunada ah fi lbeyti guriga lagu tukado markuu nabigu leey guryihiina quburaha ka dhiganina maxaa weeye bimacnaa ku tukada ku cibaadaysta qur-aanka badiya guryihiina haddaad masjidka markaad joogto keliya cibaadaysato ood ku weydaxa salaada guriga markaad tagtana aada habsoomiba ood xurtoon waa musiibo kale wey xisaabaad kalea kugu jira waxaa laga yaabaa masjidka inaad leeda waa lagu arkaa nin khatara iska dhigo oo la yaqaano cibaadaysta si fiican baasha u kala bixi hadhow markaad xagga tagtana cidna kuma aragto cid salaadaada sheegi lama arko qur-aankaada lama ogo mar haddaan lagu sheegaynin on lagu ammaanaynin waxbaa ku lugeyna shahda iska cab iska fadhi hadhow markaa masaajidka soo gashana aada baabul kacsanayso oo tixtix kicinayso waa musiibo kale ayib labadaba ha lasku wada masaajidkana lagu cibaadaysto guryahana lagu cibaadaysto asaabica anahu muqararun waxaa sugnaa cindahum cinda asaxaaba caddaa oo qaacide ahaa aan muran lahayn annahu laa yusallaa fi lmaqbara qubuurta inaan lagu tukanayn in qubuurta iyo xabaalaha waaweyn markaad soo gasho iyo meesha dadka lagu xabaala aan lagu tukanayn saxaabadu hawshaa waa ogaayeen xageenu ka qaadanay walaa tattakiduu buyuutakum qubuura laa tajcaluu buyuutakum qubuura idan saxaabada agtooda waxaa ku caddaa oo go-aan ahaa xaggana ay aaminsanayeen maanka iyo maskaxda ay geliyeen inaan qubuur lagu tukanaynin sidaa darta xadiidka anas ee saxiixa ama xasanka ah laa tusalluu bayna alqubuur wa fii riwaaya nahaa an yusallaa bayna alqubuur nabigu umadda wuxuu ka reebay in qubuurta dhexe lagu tukado ayib janaazadoo kale lagu ogol yahay inaad intaad qabri dul istaagto ku tukato ruux waa dhaweyd la xabaalay oo loo maqan la xabaalo oon ka qayb gelin janaazadiisa salaadiisa haddii aad timaado way ku tukan kartaa laakiin waa in xabaashiisu ay cusubta oo dhowdahay laakiin salaad sunno ah walaa mid farad ah walaa duhur qubuur kuma dhex tukan kartid hadday dhacdo xabaalaha waaweyn sida soomaaliya meelo kamida iyo kenya iyo caalam alcarabi oo kale meelo kamid a waxaad arkaysaa masjid yar baa ka dhex dhisan qubuurta iyo maqaabirta dhexdooda masjidka asaga kuma tukan kartid xagga qubuur baa ka ah xagga qubuur baa ka ah dhabarka qubuur baa ka bidix qubuur baa ka waa masjid axmed iyo bacd al-aima waxay fasaxeen masjidka asagaa salaatuljanaaza in lagu tukado oo mayd haddii la keeno lagu tukan karo laakiin salaadii kale caadiga ahayd sunooyinkii salaadii faradka ahayd mamnuuc wey xadiidka anas baana diiday bal madhabka asaga waa madhab jumhuur ahlicilm xata shaaficiya fi kutubin bay ku caddeeyeen ibnu mundir baa soo goriyey fi lawsat nawowi fi sharxi lmuhadab ibnu taymiya meel badan kaga hadlay muqni ibnu qudaama madhab jumhuur ahlicilmi wey marka salaadaha iyo amwaadda iyo qubuurta waa la kala fogeyn maqaabirtan ujeeda qubuurta ayib athamina tacliilu dalika arrintaa nabigu wuxuu ku cileeyey biana salaata arajuli wa salaamahu calayh yabluguhu wain bacuda nabigu markuu leeyahay qabrigii yaan lagu soo noqnoqonin ziyaaradii yaan la badinin nabigu wuxuu ku cileeyey meel kastood joogtaanba salligiina iyo salaadiina o isoo gaadhi maxaad marka uga baahan tihiin joojiya warka asaga haddaad nabiga waan ku cibro qadan lahaa qabrigiisi waxaa leeyahay miya saas aha qubuurta kala tag ku cibro qaado arkaysaa maqlaysaa wey arkaysaa in shalay hebel lasii waday maqlaysaa in la dhiman doono aduguna la dhiman ayib warka jooji idan marka maslaxadii ahayd ku cibro qaadashadii mafsado ka weyn baa timid oo laga baqay in hawsha ay noqoto wasiila min wasaa'il shirk ka fogow marka waa yahay idan dar'u lmafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix waa qaacida sharciya kuliya shayga mafsadada in la hor istaago oo la baabi'iyo ayaa ka wanaagsan in dheef la soo jiito meeshan ajri baan ka heli baad leedahay laakiin dhib ka weyn baa ku jira kaa socon mayso idan dhibka in la hor istaago ayaa ka munaasabsan inaad maslaxa iyo wanaag meesha ka raadiso dar'u lmafaasid idan mafsadatu shirki oo wasiilatu shirki baan meesha ka dafcinaynaa oon awdaynaa intaynu dhihi lahayn meesha cibraa ku jirta iyo marba nabiga ilahi hadduu oofsa aniguna waa ku xigaa waan kusoo cibro qadanhaya waxaan leenahay shirki baa kasoo dhow kasoo uray iskaga caran meesha ama cibro qaadashada ummadda kale iyo qubuurta kale ee muslimiinta kugu filan soo booqo kuwa ayaga xagga aad biana salaata arajul ruux ninka salaadiisu iyo wa salaamahu salaamtu nabiga salaamay caleyhi cala rasuul yablugu waa gaadhaya rasuulka wain bacuda ninku haba fogaado musalliga iyo musallimkuba falaa xaajata baahi ma jirto
ilaa maa loo baahan yahay yatawahamahu ay malaysanayaan ama filhayaan man araada alqurba ruuxa dhawaashaha doonay dadka doonaya nabigaan u dhawaanaynaa ama nabigaan u tagaynaa ama hawlahaas oo dhan ba meesha kuma jiraan nabiga ma doonaya ad u dhawaataa salligiisa badi diintiisii baro ku dhaqan qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayagfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim qul atiicu allaha wاrasuul fain tawallow faina allaha laa yuxibu lkaafiriin qur-aanku warkiisu waa cadyahay haddaad aniga qul in kuntum tuxibuuna allah haddaad alla jeceshihiin ood muslimiin aad tihiin oo islaan sheeganaysaan aniga isoo raaca faatabicuuni aniga nabi maxamed dariiqayga raaca diintayda qaata ku dhaqma yuxbibkum allah allah idin jeclaan kow wayagfir lakum dunuubakum dembiguna waa idin dhaafahaya wallahu gafuuru raxiim idan intaa lagama hadhin waxaa nabi maxamedow qul atiicu allaha wاrasuul ilaahay ateeca diintiisa qaata oo rumeeya oo raaca rasuulkana ateeca fain tawal rasuulka haddaad raaci weydaan ood brotocool iyo dimuqraadiyo iyo xeerbeegto iyo bakti aad keentaan fain tawallow faina allaha laa yuxibu lkaafiriin diinta nabiga iyo dhaqankiisi ninka ka jeedsada gaal wey ayadda caddaynaysa fain tawallow can طaacati illahi wa طaacati rasuulihi hadday ka leexdaan oo ka jeedsadaan faina allaha laa yuxibu lkaafiriin almutawaliin can طaacati wa طaacati rasul war kooban wey idan miisaanku waa itibaac llah waxa wey itibaacu rasuulihi wa tajriid الtawxiidi lilah idan labadaas shardi baa lagaa rabaa haddaad weydana waad maqan tahay ataasica haddaad nabiga marka doonaya u dhawaato war haddaad ka fog tahay iyo haddaad u dhowdahayba waa isku xugum laba gooraba salaantaadii waa la gaadhsin iyo salligaadii marka camalka yaan lagaa badinin waxba qabriga ku wareegeysan camalkaa yaan lagaa badinin salaada iyo salliga iyo ku dhaqanka diintiisii ataasica kawnuhu sal lla alay wasalam fi lbarzaki nabiga ahaashiisa uu yahay fi lbarzaki yani barzaq waa nolosha udhaxaysa nolosha hadda aynu ku jiro iyo midda qiyaamo nolosha udhaxaysaa barzaq layadaa waa dadka hadda qubuurta ku nool hadda qubuurta ku jiraan ujeeda dadka dhintay hadda xabaaran aakhirada weyneydna ma aysan gaadhin adduunka inagoo aan dhoobnayn indha cadaynayna ma joogaan waxay ku jiraan marka xayaata udhaxayso xayaata dunya iyo xayaatadii aakhire abadiga ahayd udhaxaysay ku jiraan idan taasa alxayaat albarzakhiya loo yaqaana ayib nabigu marka isagoo fi lbarzak ku jiraay tucradu loo bandhigahayo acmaal ummatihi ummadiisa acmaasheedii baa loo bandhigay bimacnaa salliga aad ku salli nabiga waa loo geyn salaanti baa loo geyn idan waa la marinaya iyo acmaal ummatihi fi salaati salaada ay nabiga ku salliyaan iyo wasalaami aleyh salaamtay salaameenba bal xadiis baa u cadaynaya nabiga markaad salaanto ama ku sallido in ruuxdii loo soo celinayo kadibna la odhanhayo hebel hebel oo halkaa jooga ayaa nabiga ku salaamay kuguna salinaya yakfi waxba kaama maqno haddaad tiraahdo malaayiin muslimiina hal mar salinaysa oo hal mar salaamaysa nabiga see loo kala waxaynaya hawsha waa hawl hayba hawl aad fahmi karta ma aha ayib malaaigtu hawshaasay u qaybin iyadaa taqaan ayib marka hawshaa haybigaa siduu nabigu u sheegay ad rumaynaysaa baabu ma jaa ana bacda hadihi اlummati yacbud اlawthana baab kala wey wuxuu baab wuxuu ku yimid ummaddan qaybo kamida ummadda nebi maxamed qayb kamid a inay asnaamta caabudi doonaan ummatu maxamed baan nahay ummatulijaabaan nahay umma marxuumaan nahay khayr iyo barako kuntum khayra ummatin ukrijat linnaas haddaad musafka la soo istaagto wixii kale nabigu ka digay in aadan ummad u sheegin musiibo wey nabigu wuxuu caddeeyey ummaddiisa diinta qaadatay qaybo kamida ma aakhiru zamaanka inay diinta ka tegi doonaan oo ay mushrikiin noqon doonaan o ay gaaloobi doonaan marka fallaadhi cirka loo ganay nin walba filo weeye hala is ilaaliyo ayib wa qawluhu tacaala ama wa qawlihi tacaala alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti wالطaaguut wayaquluuna liladiina kafaruu haؤulaaءi ahdaa min aladiina aamanuu sabiila sheekhu wuxuu ihi aayaddii buu soo qaatay yan istinbaadka sheekha la yaabaysa aayaddan wuxuu leeyahay waxay caddaynaysaa ummadda nabi maxamed qaybo kamida inay gaaloobi doonaan diintana ka bixi doonaan de aayaddu sheekhu yuhuud bay ka hadlaysa waa sidhe sheekhu waa kutusahaya alam tara miyadan nabi maxamed ujeedin oodan fiirinaynin baa le ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban qayb laga siiyo meel kitaabi kitaab ka mid a kitaabu tawraad walinjiil injiil iyo tawraad waa yahuud iyo nasaara laga hadlaya wuxuun cilmi ay ka qaateen oo laga siiyey kana yaqaanaan yu'minuuna biاljibti wالطaaguut waxayna rumaynayaan biاljibti sixirkay rumaynayaan ama shayطaanka iyo wالطaaguuti shayطaanka rumaynayaan
xag waa ahlu kitaab tawrada injiil baa lagu soo dejiyey wamaca dalika haddana waxay rumaynayaan sixir iyo shaydaan wayaquuluuna waxayna leeyihiin liladiina kafaruu kuwii gaalooba mushrikiin quraysh ah ba waxay ku leeyihiin haaulaa'i kuwan mushrikiin quraysh ee carbeed yaa ahdaa ka hanuunsan oo ka qiimo badan min aladiina aamanuu sabiila xagga waddada yacni mushrikii alcarab wa mushrikii quraysh iyo muslimiinta wanaagsanaa ee nebi maxamed hogaaminhayay baa yahuud la weydiiyey markaas wuxuu yihi maxaa iskaga kiindan ah ma idinka quraysha ee qiimaha badan nebi maxamed iyo kooxdiisa dadba ma ahaba idinkaa ka qiimo badan oo ka fiican war iska cad weeye sabab buu lahaayo ninka loo yaqaano kacab ibn ashraf iyo xuyay ibnu akhtab labadaa nin oo yahuudi ah ayaa maka tegay quraysh baa u timid waxay dhaheen quraysh baa la hadasho waxay dhaheen yahuuday niman ahlu kitaabaad tihiin diimihii horaad wax ka taqaanaan waxbaad akrideen annagu qaraabadan soo dhawaynaa oo geelaan qallaa oo xujaajtaan raashinka siinaa oo muctamiriinta iyo waftiga ilaah baanu keennaa oo dadkan intaasu shay baanu qabanaa oo ninkan sumbuurka ah bimacnaa nebi maxamed bay ku jeedaan sumbuurka nebi maxamed ee abtarka ee gablanka ah ee riximka goynaya bimacnaa iyada gaaladu ay ujeedaan riximkii goynhaya ee dadka laynhaya dhiigga daadinhaya iyo annaga quraysha gartaan idiin dhiibanay keenaaga khayr badan ba keebaa khayr badan yahuud baa garti loo dhiibay khasmaankana waxaa weeye waa muslimiintii nabi maxamed hogaaminhayay iyo mushrikii alcarab quraysh culummadii garta loo dhiibay ee quraysh u dhiibatayna waa kacb ibnu ashraf iyo xuyay ibnu akhtab garta waa lidin dhiibay xukuma yidhahdeen garti bay naqeen labadii yahuud garti markay naqeen waxay dhaheen maxaa iska kiindan ah maxamed waa nin kharibay oo kuwa raacayna waa niman waalan oo burladuul ah oon miyir haynin maxaa iska idinka ahlu khayr ah tii buu rabbi ka hadlahaya alam tara ila aladiina yazcumuuna alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab oo yahuuddaas garta loo dhiibtay ah yu'minuuna biljibti waataaguut sixirkii biljibti sanamna waa lagu sheegay sanamkay rumaynayaan iyo wataaguuti shaydaan bay rumeeyeen say u rumeeyeen kufaaru quraysh iyo mushrikii alcarab bay u sacabeeyeen oy garta siiyeen maadaamay u sacabeeyeen oy garta siiyeen taa macnaheedu waxaa weeye yahuuday ama kacab min ashrafo waxaad rumayseen sanam iyo taaquud iyo shaydaan baad rumayseen haddii maanta garta lagu dhibo adoo oday ah lagu yidhaahdo garta naq wiilashan boodyaha gaaban ee sarwaalka gaaban ee garhka dheer ee burka la ordahaya iyo nimanka reerka tuf iyo taxayl ku dhaqa jiray ee reer tusbaxweyne ahaa keebaa gar leh maxaaska gadana abaar baaba kuwan laga qaaday colaad baa laga qaaday dhiig qulqulahayn baa laga qaaday balaayaa ku dhacda kuwan fidnaba noogama horreynay alam tara iladiina uutuu nasiiban baad gelaysaa weligayn kaa hoos bixin nimaad og tahay inuu khaldan yahay oo baadil ku taagan yahay hadduu intuu xoogow kuu dhiibo maalinle shaah kaa bixiyo indhaha kugu caddeeyo bal aniga hebelkeebaa saxan macaaskii adaa ka fiican alam tara iladiina uutuu nasiiban min alkitaab shacaabdi waa marka meeshuu wax ka dhiraan dhiranaya waa fahmaysa halkaas wey aharka marka kacab ibnu ashraf inay aayadda kusoo degtay wuxuu sameeyeyna waa athar saxiixa weeye axmed baa soo saaray nasaa-i fi sunanihi ibnu jariir fi tafsirihi bazaar fi musnad ibn xibaan fi saxiixi bisanadin saxix bay kusoo saaray waxaa kaloo aharka isaguna soo saaray ibn abi xaatim fi saxiix fi tafsirihi asna in cikrima la weydiiyey hawshan saa uu ku fasiray aayaddu marka taasay ka hadlaysa haddaba waayo xaggee iska qabanaysa waxay iska qabanaysaa nabigu salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay in muslimiintu qaybo kamida ay shabihi doonaan oo u dhaqmi doonaan sidii yuhuud oo kale ummadda qayb kamida inay raaci doonto waa inagii soo marray latattabicunna sunana man kana qablakum waa inagii soo marray idan maadaama nabigu uu sheegay ummaddiisa qayb kamida inay gaalada ku dayan doonto oo fartay qoraan ba ay qori doonaan oy xidig iyo ka dhigan doonaan deesho wanaagsan oy gaalada raaci doonaan baa nabigu inoo sheegay aayaddana waxay sheegtay dhaqan xun oo yuhuuddu samayn jirtay oo markii gar loo keeno dhaalim iyo madluum loo garnaqahaya ay dhaalimka la safan jireen garta nimaan lahaynna ay siin jireen kufri iyo gaalnimana ay u marxabayn jireen falkaa yuhuuda ay samaysay muslimiintuna way samayn doonaan bay sheekhu ku leh oo sida yuhuud yu'minuuna biljibti waataaquut u noqdeen baa muslimiinta qayb kamidana yu'minuuna biljibti waataaquut maxaa yeelay nabigaa inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ummaddiisa qayba kamid inay gaalada shabihi doonaan
warkaa waa fahanteen bay ila tahay halkaasu sheekh u socdaa wayaquuluuna liladiina kafaruu waxayna ku odhanhayaan kuwii gaaloo mushriku quraysh bay u marxabayn u nacamlaynayaan haaulaa'i kufaaru quraysh baa ahdaa ka hanuun badan sabiilan xagga wadannimo ka toosan min aladiina aamanuu maxamed iyo saxaabadiisa ah bal u fiirso dulmigaa eeg quraysh baa xooga u dhiibtay waa la soo dhaweeyey indhaha loo taagay garta xukumaa la yidhi idinkaa wanaagsan bay dhan weligiin ba ahlu khayr baa xaj waxaad ahayd sadaratu bayt illah asxaabu siqaaya tihiin asxaabu sidaana tihiin geelaad gurici jirteen ahlu khayr kuwan soo maaha dab baa laga qaaday iyo tincas baa laga qaaday waxay soomaaliya la taagan tahay meelo badan la taagan tahay iska ilaaliya hawsha ayada bidaaro sibiq bay kugu gashaayeen ku gelin baashaas ayib wa qawlihi tacaala hal unabiukum qul hal unabiukum bishari min dalika مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير طيب إذن تيبا لغا الله هيا آيات دي با ولي سعوتا هوش يهودين با لغا الله هيا markii laga soo sheekeeyay muslimiintii wanaagoodii iyo gaala mushrikii alcarab dhibkoodii iyo baktigoodii iyo gartiisay u naqeen yuhuud laga sheekeeyey ba waxaa la qul waxaad nabi maxamedow hal unabi'ukum ma idiin sheega carab yuhuuday ama ahlu kitaab iyo gaalay munaafiqiin ma idiin sheega bisharrin min dalika ka aad sheegteen aad tiraadeen nabi maxamed iyo kuwiisu waa khaldan yihiin qurayshna waa fiican tahay ama munaafiqiinta toosan muslimiintuna waa xun yihiin aad tiraadeen wax kadar ma idiin sheega mathuubatan xagga abaalmarinta ka oga daran xagga cadaabka iyo ciqaabta oga daran cinda allah ilaa agti man weeye lacanahu allahu alla u lacnaday midkuu alla lacnaday oo yahuud adhe yahuud ilaahay baa lacnaday oo waqadiba caleyh uu cadhooday oo wajacala uu ka yeelay minhum xaggooda alqirada daanyaro ka sameeyey intuu masakay buu daanyaro ka dhigay iyo walkhanaasiira doofaaro daanyaro iyo doofaaro laga dhigay riwaayada saxiixa oo min aathaari taabiciin waxay tilmaamaysaa markii reer banu israa'iil iyo yahuud la rogahayey intay dulmi la yimaadeen oo sabtida ku xadgudbeen oo wixii rabbi ka xarimo o dhan banaysteen la halaagay in la masakay duqoydoodii waayeelada ah waxaa laga dhigay doofaaro khanaasiir baa laga dhigay dhalinyaradina daanyara laga dhigay wayna leedana way dhamaadeen daanyaro hadda jooga iyo doofaaro hadda jooga ma aha yahuudi la nasakay ma aha waa xayawaan kaloo madax banaan wey ayib man lacanahu allahu midku alla lacnaday baa ka shar badan weeye dadkaad sheegaysaan aad shar ku sheegtaan shar ma lehe dad waxaa u shar badan aakharana u cadaab kulul mathuubatan cinda allah ay jazaan wa ciqaaban cinda allah man lacanahu allahu oo yahuud ah wagadiba calayhi oo u cadhooday wa jacala minhum alqiradata walkhanaasiir iyo waman cabada taaguut wa cabada waxay ku cadfan tahay man lacanahu allah halkaasay ku cadfan tahay waxaa u shar badan weeye man lacanahu allah wagadiba calayh waman cabada taaguut iyo kuwa caabuday taaguutka caabuday ayib idan meesha waxaa loogu dhameeyey mushrika alcarab iyo mushriki iyo yahuud iyo nasaaraba waa soo galeen kulligood waa cabadu taaguut marka kor laga fiiriyo marka kale marna waa maqduub calayhim oo yahuud idan marna waa malcuuniin lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil calى lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casow wa kanuu yactaduun kanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuh labisa ma kanuu yafcaluun idan waa maqduub calayhim waa malcuuniin waa caabidiin liلطawaagiid ayib marka waa in la iska ilaaliyo weye marka waxa weya garta ad qaadeen waad ku fashilanteene allah garta qaadi oo saa u kala xukumay ayib ataaguutna waa inaga soo maray waxaa loo yaqaana taaguut waxba kaga noqon mayno wa qawlihi tacaala sheekhu aayaddan muxuu u keenay aayaddan wuxuu u keenay dadkii inaga horreeyey ahlu kitaabka ahaa qayb waxaa ku jiray ilaahay subxaanahu watacala u lacnaday qaybuu u cadhooday qaybuu masakay oo uu ka dhigay doofaariya daanyeero iyo qolyo caabuday dawaaqiidda intaasoo falo xun ay ku dhaceen dadkii inaga horreeyey ummadda muslimiinta qayba ku dhici doonta jira wey sidaa darteedna nabigu wuxuu tilmaamay aakhiru zamaanka ummaddiisa qayba kamid a in la masakhi doono ummaddiisa yakunu fiihim qasfun dhul yani gantaalaa ku dhici doona waaweyn biriq iyo jac baa ku dhici doonta qayba kamid a waxaa ku dhici doona khasf dhulka lala gooyo waxaa dhici doona mask in la masakho la suuro bedelo daanyaro laga dhiga dadka qayba kamid a magi xadgudbaan idan dembi kasta iyo xumo kasto iyo ahlu kitaab sameeyeen iyo dadkii inaga horreeyey ummadda qayba kamid ah falkaa ku dhici doona
qaybta ummadda kamid a falkaas samaysayna waxay mudan doonaan waxay yahuudi mudatay ahlu kitaab muteen sheekhu halkaasu marka hawsha u wadaa iska ilaali marka ayib wa qawlihi tacaala qaala aladiina galabuu calaa amrihim lanattakidana calayhim masjida asxaabu lkahfi marka laga soo sheekeeyey am xasibta ana asxaaba alkahfi wاlraqiimi kanuu min aayaatina cajaba id awa lfidya suurat lkahfi waa taqaana nimanka subanaa wana dhalinyarada ahaa ee ku dhex barbaaray bay-ah shirkiya wa fasid ah ilaahayna ka badbaadiyey markii nafta loo keeno ilaahay inay caabudaan xorriyad u waayeen waa kii ay hijrada duurka galeen god bay heleen godkii bay galeen hurdaa lagu tuuray 309 sanay jiifeen u fiirso intii marka jiilka xilligii jiray iyo boqortooyadii iyo dawladii ay rogman lahaayeen oo dhan ee adduunka la bedelayo o dhan ba iska jiifeen fadarabna calى aadaanihim fi lkahfi siniina cadada ayib markay wamaca dalika ilahi subxaanaه wa tacaala wuu rogrogahay ruuxu waa mayd ahaan wey wamaca dalika markuu wax yar jiifaba dhan kale loo rogahaya wanuqalibuhum dat اlyamiini wa dat الshimaal maxaa loo rogrogaya ma taqaana ruuxa hadduu hal dhinac u jiifa dhowr saacadood ama maalmo u jiifo dhiiggiisoo dhan baa hoos tegaya wuuna fadhiisanaya dhiigku dhanka bidix oo dhan baa dhiigku fadhiisanaya wuuna dhagxoobaya kadib naftaa kaa bixi waa ku dhamaatay idan markuu xaggan saacado u jiifa iyo maalmoba waa la rogahaya dhiigga agga uu shaqaynaya maydna waa tahay ruux mayd ahaana waadna jiifta waad nooshahay waa awood rabbaani ah rogroga marka waxaa ku jirta xaalad caafimaad hawl dhakhtarnimaa lagu wadaa nersin baa u shaqaynaya iyagu isma oga waa la rogrogahaya malaa'ig baa la shaqaynaysa o la rogaysa kadibna markay soo tostooseen 309 sano kadib waxay moodahayaan boqorka soo cadhisaday inuu weli nool yaho meesha haysto waxay la tahay inay maalmo jiifeen ama maalin gelinkeed ama saacado ayib iska daalmay markii la helay ummadii rogmadii ummaddii heshay ee nimankaas soo helay ay la kulmeen markay dhammaadeen meeshii lagu arkay meeshay ku dhinteen ama naftu ay kaga baxday ya waxay dhaheen waa la isku khilaafay 3 kooxood baa isku qabsaday boqorkii xilligaa joogay awoodda sare laha wuxuu hi maxaan ka dhiganayaa masjid anaa meesha maamulahaya shacabkiina fadhiista idan tii baa laga warramaya qaala aladiina galabuu calaa amrihim asxaabi ilkahfi nimankii taladoodii gacanta ku dhagay ee xoog ku qabsaday meeshiina u sarreeyey maxay yidhaahdeen lanattakidana calayhim calaa asxaabi ilkahfi waxaanu ka dhiganaynaa masjidan meel lagu tukadaan ka dhiganaynaa galabuu calaa amri waa kuwama bacdu mufasiriin waxay leeyihiin gaalada wey gaaladii xilligaa adduunka joogtay ayaa muslimiintii xilligaa joog ka xoogbatayo nimankii baa xoog ku qabsaday meeshana barakaystay qole waxay leeyiin ma ahee waa taladii iyo taliskii meeshaa ka jiray baa meesha xoog ku qabtay kubaradii iyo saadaadkii maogtay mar haddii xooguhu nacfi meel ka soo baxo waxaa ku habsada ninka meesha u lambar weyn dawladdii baa meesha qabsatay wey qaala aladiina galabuu calaa amri oo dawladdii ah baa yidhahen lanattakidna calayhim masjidan tafsiir kale wuxuu leeyahy maya waa muslimiintii ducafayna ahay muslimiin tawxiidka fahansanna maysan ahayn lanattakidana calayhi masjidan leanna waa wasiila min wasaa'il shirk weligeedna ummadda waa looga digi jiray inaysan banaanayn fi ahli kitaab wa fi lumami asaabiqa in ambiyada iyo awliyada iyo ahlu khayrka meelahay ku dhinteen ama xabaalahoodii laga dhigta masaajidda nabiga anoo jir inaysan banaanayn fi diin ay ku banaan aysan jirin ayib haddii ahlu kitaab iyo yahuud iyo nasaara u banaanayd in qubuurta ahlu khayrka ay masaajid ka dhigtaan nabigu kuma lacnadeen lacnat ullahi cala yahuudi wanasara itakaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid idan qolyahan sameeyey hawsha ayada ah ee ahlu kitaabka ay naga horreeyey ee sameeyey falka iyagu sameeyeen ummadda qayb ka mid ah samayntood shaq ku leh idan laabudda waxaa la helhayaa dad islaam sheegan haya oo qubuurta awliyada iyo culummada iyo ahlu khayrka ku tukado oo masalla ka dhigta iyo qubur ka dhigta lanattakidana calayhi masjidan waad arki doontaa imisaad arkaysaa qubad meel ka taagan iyo qabri meel ka taagan oo masjid laga dhigto lagu digriyo oo laga dhawaaqo ayib adu marka calaa kulli tafaasiir ama galabuu calaa amrin oo gaaladii ah galabuu calaa amrin oo taliskii boqoradii ah galabuu calaa amrin oo muslimiinta ducafada ah intuba waxay ku dhaceen wasiil min wasaa'il shirkay ku dhaceen kii gaal aan horaanba gaal bu ahaa shirki yarna waa ku darsaday kii muslim ahaana horaanba muslim bu ahaa wasiila min wasaa'il shirkina waa ku dhacay almuhim dhaqan khaldan oo xun uu qur-aanku ka digay weeye nabiguna in badan uu ka digay falkay sameeyeen ahlu kitaabkaasna muslimiin baa samayn doona muhiimaddu intaas wey can abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi qaal nabiga rasuulka ilahi wuxuu yihi latattabicunna ilahay baan ku dhaartay muslimiin waxaad raaci doontaan oo dabageli doontaan
sanana man kana qablakum sanan sinkaadi la kordhabo waa bimacnaa sabiila man kana qablakum waa mufrad wa jamc ma aha waa sabiila man kana qablakum haddii la godo oo sun la yidhahda waa jamcu sunna waana jamc طaraa'iqa man kana qablakum wey subula man kana qablakum ayib latattabicunna waxaad raaci doontaan oo dabageli doontaan sanana man kana qablakum dadki idinku horreeyay waddooyinkooda xumxumo waad qaadi doontaa wey wixii waddo xumay yahuud idiin qaaday ama gaalo qaadeen muslimiinta qaybo kamidaa samayn doona xadwa alqudati bilquda yani milan bimilin oo kale wey waxaad raaci doontaan xadwa qudati bilquda baarinta kale siay ugu aadan tahay si lamid aad u raaci doontaan wey alquda waxa weeyaan waa leebka baalka lagu maarata leebka baal baa lagu xidhaa ama baarin baa lagu xidhaa haddii kale socon mahayo awlax buu noqonayaan dhaqaaqayni laba baarimood baa lagu xidhaa waa la siman marka tanna xaggaa laga jari tanna xaggaa laga jari tanna sidoo kale laga jari waa siman yihin waa la isku beegahaya waa la isku sargoynhaya laba baarimood ama 3 baal oo isla eg baa leebka lagu xidhahaya sida marka ay labadaa dhagood ee baarintu ay u siman tahay baad idinkuna yuhuud iyo ahlu kitaab u raaci doontaan fi shari ilaa aad ku sinaataan almuhim jaantay qaadaan baad qaadaysaan wey saanta meeshay dhigaan baad dhigaysaan adinka meeshay saaraan baad saaraysaan idan hawl culus weeye xataa law dakhaluu xataa hadday galaan buu nabigu uhi juxra dabbin maansa lugoley godkeed hadday galaan ama maansa cagaley waxaa tirada ama raynuug waxaad u taqaanaanba la dakhaltumuhu waad gelay lahaydeen baa lii bimacnaa meel looga hadhi maysaan war god maansa lugo dad cidba ma qaadee waa sida haddaad tiraado waxaa weeya nabigu waa haayo oga jeedaa meel cidhiidhi ah oon bini aadam naf ka dayin ama aan isku xataa hadday jiidhaan oo derdera waa derderaysaan wey yani nabigu haayo ku siin haya qaaluu ya rasuula allah alyahuuda wالnasaara ma yahuud iyo nasaara ujeedaa laa tattabicuna sana man kana qablakum dadki idinku horreeyey markaad leedahay nabigow waxaad ujeedaa yahuud iyo nasaara nabigu wuxuu ihi faman haddaba yaa kala wey yaan ka hadlaya anugu dadka xunxuna idinka dhigaya waayo soo yahuud iyo nasaara ma ah akrajaahu fi صaxiixayn buu sheekhu ujeeda lafdigan saxiixaanka kuma jiro lakin asl xadiid baa saxiixaanka ku jira lafdiga saxiixanka ku jira waxaa wey la tattabicuna sana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa law dakaluu juxra dabbin latabactumuuhu alxadiid xadiidkaas weeye waa lafdu muslim baa iskale haddaad tiraado sheekhu ummadda nebi maxamed sooma khayr badnayn waa maxay nimankay sidii yuhuudba u dhaqmahaye ay caynkay u labisanhaya oo qaabka u dhaqaaqay nabigu uu sheegay uu fasiro wuxuu yidhi ummadayda inta sharka badanee xun baa yuhuud iyo gaalada raaci doona dhaqanka yuhuud samaysan la samayn doona xadiidkii shadaad ibn aws baa caddayno layaxmiluna shiraaru hadihi اlumma calى sunani اladina khalow min qablihim min ahli kitaabi xadwa اlqudati bilquda ummadayda qeybteeda sharka badan ee xun ee liidata ayaa wadooyinkii iyo jidkay gaala iyo yahuud qaadeen mari doonta xadiidka axmed baa soo saaray طabarani ajuri fi الshariica marwasi fi الsuna xadiid xasana wey waxaa kaaga daran xadiid kale oo xasan asna wuxuu leeyahay xatىa law kana fiihim man ataa umahu calaaniyata lakana fi umatii man yasnacu dalik xataa law dakaluu juxra dabbin waa laga darayba nab wuxuu hi xataa yahuud iyo nasaaro iyo gaalo hadday jirtay ama dhacday mid hooyadii fuulo ka macsiyaystay meel public ah oo facshir hooyadii kaga macsiyaystay ummadayda qaybaha xunxun waxaa laga heli doonaa qayba hooyooyinkood wax ka daya meel caddan kaga daya banaan cadlaan kaga daya yani fartay qodaan ba qodaysaan wey madaxa hadday waa ku soconaysaan sarwaalkay qabaan futada hadday jeexdaan waad jeexanaysaan wey hooyooyinkood hadday wax ka dayaan oy banaan cad kaga macsiyaysaanna waa isku dayeysaan bu nabig le salawatullah waslamu alayh bimacnaa ummadda inteeda xun wey xadidkaasna waa xadid xasana wey waxaa ka daran xadiidkii ahaa xatى law ana axadahum jaamaca umahu wa fii lafdin jaamaca imra'atahu biطariiqi lafacaltumuuh mid ayaga kamid a gaalada aan idinka dhigahayo hooyadii hadduu shaarica iyo jidkay wadda hayweyga kaga zanaysto mid islaan sheeganaya asaguna intuu soo ordo hooyadii meeshaa ku fulaya yani hawshu waa hawl khatara wey nabigu hawshaasu ka digahaya ummadoo dhanna ma ahe waa inta xun ee khayrka daran buu nabigu ka hadlaya salawatu waslam aleyh xadidkan marka waa xadid saxiixa idan nabigu mar hadduu saa yidhi oo intaasu xadiid ba ay ka sugan tahay aayadihii marka dhaqankii xumaa ee lagu sheegay ee ahlu kitaab iyo yahuud iyo nasaare ay sameeyeen ummadda nabi maxamed in khayr daran oo samaysa laga waayi maayo haddaba marka waa nabigu ma sugahayo oo wuxuu ammaanaya ma ahe wuxuu ka digahayo shayga xumihiisa waxaa loo sheegaa hala iska ilaaliyo soo ma
nabigu wuxuu leeyahay hawsha iska ilaaliya yaan lagu dhicin ummaddan ha laga dagaalamo. walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday waxbaan ka booday walimuslimin imaam muslim waxaa u sugnay muslim bin xajaaj fi saxiixi can thawban mawla rasuuli illah ana rasuula allahi sal lla alay slam qaala ina allaha zawaa liya alarda ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala zawaa wuxuu ii duuduubay iisoo ururshay liya aniga muxamed ah salawaat ullahi wasalaamu alayh al dhulku iisoo duubay dhulkan aad aragtay ballaaran intaasoo milyan oo mayl ah baa nabiga loo soo ururiyay waa la tusay gariib ma aha hadda maabka haddii lagu ad fiiriso dhulka o dhan baad arkaysaa inta qaarada adduun o dhan baad maabka yarka ka arkaysaa bini aadam wuxuu wareejiyay baad wax ku aragtay ilaahay awoodiis maxaad moodaa subxaana wa tacaala ilahay baa usoo ururiyay nabigaas ankaasu dhammaanteed arkay fa ra-aytu waxaan arkay mashaariqaha barigeeda qorax udhaceeda iyo qorax kasoo bixdaan rabaa iyo wamagaaribaha galbeedyaheeda idan culum waxay sheegeen oo yidhahdeen dhulku wuxuu u fidsan yahay galbeed iyo bari badir axmed wuxuu u fidsan yahay waqooyi iyo koonfur haye doctor cabdiqaadir hay dhulku marka la yihahdo waa kubad garaangar oo isla sameyn maya xogow saasuu yar dheer yahay labada yar waqooyi sawdka waqooyi iyo koonfur baa aada u kala fog mise galbeed iyo bari ba aad u kala fog waqooyi iyo koonfur almuhim kusoo heshiiyay idinku laakin culamada muslimiintu waxay leeyihiin islaamku wuxuu u fiday bari iyo galbeed labadii meelood nabigu u magacaabay buu u fiday xaggan westigana wuu aaday oo ilaa andalus spain buu galay islamku ila madiina maka xijaaz baad ka bilaabaysa waana xudinta caalamka adduunka wey bartamaha adduunka waa maka wey bartanka dhulka beriga ah een biyaha lahayn ee ingeganaya beriga ah bartamahooda waa maka wey litundira uma alqura waman xawlaha saasaa loo yidhi waa bartanka hadda xaqiiqa marka la baara bartanka wey idan dhulka beriga ah ee biyo la-aanta waxaa badha makaa badha maka marka la joogo islamku wuxuu ufiday galbeedka iyo bari buu ufiday waqooyi iyo koonfur wax yar baa aaday cilmigaasaa meesha ku jira fara-aytu mashaariqaha wamagaaribaha wa ina ummatii ummadaydu sayablugu mulkuhaa taleedu waxay gaari doontaa milkigooda maa zuwiya lii minhaa wixii aan la iisoo duubeen arkay dhulka la iisoo ururshay ee andhaha si fiican u saaray ummadaydu diinta ay wadaa fidi doonto halkaa gaari doonto ayib waucطitu waxaa la isiiyey nabig sal ly slam alkanzayn labada kayd baa la isiiyey alaxmara midka casay guduudan oo dahabka ah iyo walabyada midka cadow ee fidada ah intuba waa la isiiyey axmarka oo dahabka ah waxaa u badnaa qaysar oo romaanka aada u haysan jiray oo aada u kaysan jiray fidana waa lahaayeen lakin dahabka u badnaa amaa reer faris oo kisra waxaa u badnaa fido dahabna waa lahaayeen idan tii nabigu uu sheegay waa dhacday cumar baa xilligiisi labadaba soo qabtay kisra oo boqorkii reer faris ah iyo qaysar oo boqorkii reer rum ee reer yurubka faranjiga ah kulli cumar intuu gacanta ku dhigay buu qaybiyey weliba intii la keeno kulligood bu habeen masaajidka meel kaloo qaadaa la waayay dahabki iyo fidada laga soo qaado masaajidka nebi maxamed buu ku kuusay intuu ka buuxiyey oo cirka qabtay buu waardiyey qayb kamid a waagi dambe ka baryay bun cumar intuu ushii soo qaatay buu fiiriyey waa ooy oo ka ooyey abu cubaydi iyo xudayfa alla ali cumar uu maray gaala jabtay oo xoolahoodii masaajidku dhooban yahay baad xilligaad mashxaradi lahayd aad baytami lahayd eed awguuriya dhigi lahayd baad ooyeysaa baa layidhi wuxuu ui fahamka idanka khaldane baashan adduunya la yidhahdaa bu maalinkay muslimiin dhex gashay iyo xoolo yeeshaan baa diin ugu dambayn bu maalka asagaa markuu muslimiin dhex maro maalinkaas iskugu dambayn bu hunguri iyo maal iyo addunya ummad kala muslimiinta kala baabiin doona bu marka baalka waa musiibo wuu qaybiyey qorax kama dhicin idan marka hawshu waa saas u fiirso wadaadaha soomaalida communitiya beelaha qolyaha santarada jooga dawladaha wasarada baarlamaanka la magacaabay inta xoogow shiidka la yahay waa la wada socdaa markii xoogow shilin soo dhaco baa la kala bixi dib u fiiri taarikhda soomaaliya meel kale ha aadan reerkiina dib u fiiri
meel kale baa aad adiga xaaskaada dib u fiir adiga xaaskaada saad u wada fiican tihiin bay xoolo inkaan meel laga heli waad kala baxaysaa aabbahay u diray hooyada u diray maya walaashaa u diray ma u dirin aniga adeerkii baa kan ah kala bax wey yani baasha adduunyada musiibo wey sheekh marka waxay u baahan tahay in si fiican loo agaasimo loo idaaraya u baahan tahay laskana ilaaliyo maxalu shaahidku waxaa wey waa kana wa inii anugu nabi maxamed ah sa'altu rabbi rabbigay waxaan weydiistay liummati ummaddaydana u weydiiyey anlaa yuhlikahaa rabbi inuusan ku halaagin ummaddayda bisanatin caama abaar guud abaar iyo qaxar guud dhic maqli maysa ummadda nabi maxamed kulli abaar baa ku dhacdo waa baaba'een markay meel abaar ku habsato in baa nool oo dhaqan oo shilmaa soo tuuri adduunku markuu qayb muslimiinta gubanhaya qayb baa nool yani waxaa weeyaan abaar guud in lagu baabi'iyo ma dhacdo ilahay baan weydiistay waxaan kaloo weydiistay wa an laa yusallita rabbi inuusan ku imtixaanin oon kusii daynin calayhim ummadayda dushooda caduwan cadow oo min siwaa anfusihim naftooda aan ahayn cadow gaal ah inuu intuu xiniyaha dhigto baabi'iyo kulligood ilaa la waayo ruux muslima ma dhacayso ayib oo fayastabixa markaa u banaysto baydatum ukuntooda dhashooda baydada asal waxaa la yihahdaa waxa adugu aad gacanta ku haysiyaad ilaaliso ee sida ukunta ad u dareesho ukunta hadaad siidiisa basho wey caruurta iyo haweenka iyo dadkii maxasta oo la ilaahay bayda waa la isticmaalaa asal waxaa kaloo loo isticmaalaa hubka bayda waa la yihahda inta waa la yihahda hadda laakin waxaa weeyaan xurmadooda iyo sharaftooda saddexdaas laba su-aalood wey wa ina rabbii aniga rabbigay qaala wuxuu igu yidhi yaa muxamed muxamedow inii idaa qadaytu qadaa'an anugu haddii aan qado xukumo haddaan go-aan gaadho oon go-aan xukumo bimacnaa qadaa kawni ah wey qadaa kawni oo qadari ah fa inahu laa yuraddu ilahay qadiisa lama celin karo wa inii anugu ilaahay haddaan ahay acطaytuka liummatika ummaddada waxaan kuu siiyey anlaa uhlikahum inaanan ku halaagin bisanatin caama abaar guudo wada saamayso wada gaadho wada hadhaysa waa kow taa waa laga aqbalay wa an laa usallita inaanan ku sallidin oon kusii dayn oonan ku aafayn calayhim dushooda caduwan min siwa anfusihim cadow aan naftooda ahayn oo gaalo aanan kusii daynin kulligood wada baabi'isa oo fa yastabixa markaa cadowga u banaysto baydatum dhashooda iyo xurmadooda iyo gurigooda walow ijtamaca haba iskaga yimaado cadowga calayhim dushooda min aqtaarihaa cafwan walow ijtamaca haba ku kulmo calayhim cala alumma alislaamiya man duul biaqtaariha aqtaari dunya ku sugan adduunyada dacaladeeda waxa gaal joogoo dhan ba hadduu ka yimaado oo ummadda u kulmo waxaan kuu ballan qaaday inaysan kulligeed uusan ku baabi'in hawsha iyada oo muslimiintu wuxun ka soo hadhaan laakiin goormaa cadow lagugu sallidi gaal ah xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacda wayasbiya bacduhum bacda marka laakiin muslimiintu ayagu ay dagaalamaan oo ay iyagu isbaabi'iyaan markaa cadow gaal ah ayaa lagu sallidahaya muslimiintu maalinka iyagoo isbilaabeen ee iscuneen wixii ka dambeeyey gaala lagu salliday ilaa yomina waa saas wey ayib xataa yakuuna marka shardigan dambe ee ilaahay u yihi ummadaada ku sallidi mahayo cadow ayaga aan ahayn oo gaalo ah ku sallidi mahayo qayd buu leeyahay laakin bishard waa inay iyagu isbadbaadiyaan inta iyagu isdayn hayaan ee isbadbaadin hayaan gaalo kale lagu soo fasixi maayo laakiin maalinka iyagu isbaaba'shaan oo isqafaashaan oo islaayaan cadowgi kalena waa diyaar wey uu soo fakan haya ayib xataa yakuuna bacdum ilaa barhkood u noqdo yuhliku mid halaagayo baabi'inaya bacdan yaa dilay cumar khataab waxaa dilay mid islaamka ku dhex dhuuman hayay oo gulaam ahaa cumar ka soo tag cuhmaan yaa dilay muslimiin niman sheeganayo taabiciin sheeganaya baaba'shay oo masar ka soo dolayay iyo kuufa ka yimid cali yaa dilay khawaarij islaan sheeganaysaa dishay ilaa yawmina hada waa saas ardadii sheekh cabdiwahaab raggu dhalo ka farcamo culamo ahaa atraagta turki baa intay qabatay bay ku diraan istanbul lagu gawracay rag culamo ah waaweyn maxaa lagu haystay joojiya ilahay keyrkaad baryaysaan quburtaa iyaan la caabude ilahay hala baryo sheekh cabdiqaadir ha loo kaadiyo hala qabto hala dilo intaasoo nin baa loo dilay haweenkoodii carruurtoodii baa la addoonsan jiray sidii gaala lasoo qabto o kale waa sheekha raggii uu ka tegay warasadiis ayib muwaxidiin muslimiin ah baa intii la qabto ayaa anqari istanbul lagu addoonsan jiray sidii sabaayaadkii gaalado kale ah taarikh qoran wey idan markaa warkaaba intii muslimiin la qabtaa gaalo loo dhiibi iska badaa marka asagun waa imanhaya adiga intaad laysa muslimiinta waad gaalo u dhiibi marka gaalka maxaa hor istaagi kii waalka ee kula difaaci lahaa baabad dhiibaysa oo dilaysaay gaal warkiiba jooja wey oo yasbiya uu qafaasho bacduhum barhkood bacdan barka kale ayib
ورواه حديثك وحاوري البرقاني باوريي بعض إن لكر ربا في عن الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد قرني شناد بوها لبا أفر بقلباتين شنتي بنتي وحافظك ويناء مسد كالقري مرة لقوا إطلاقه المستخرج على الصحيحين لقوا إطلاقه وأرض شيوخ دي خطيب البغدادي هو إن أدقين بدن بوها ورواه وحوري حديث البرقاني في صحيح أي في مسنده المستخرج على الصحيحين وزاد وحون كريه برقاني زيادة برقاني كلجي ملها وحاس كله أحمد باورية أبو داود باورية ابن ماجه باورية حاكم باورية أبو نعيم باورية يغير كتب بسند صحيح على شرط مسلم انت تنبو شيخ وشيدا وإنما أخاف وكان وركي دنبيه وشيخ دوني محل شاهدك وإنما إنك لما أخاف وحان أقبق على أمتي وحان أقبق أنكلية الأئمة هجامياش المضلين وما تظلمني نحن أمتي إذا وحي يقول دران قال هذا سود وليس إيو waxyaabaha kale soo rucleen waxaa iiga daran buu nabi sallallahu alayhi wasallam niman hogaamiyaal ah ama madax ah ama madaxweynayaal oo mad dhuminay dibku u daran way madaxu haduu ka halaabo oo ka xumado oo taladu ka dhunto waa ku dhamaatay Abdulhamid Kashki wuxuu ka sheegay madal carabi ah jiray wuxuu riwaabo waxa dagaalamay kun dawaco oo liba hogaaminayo hadda hore waa idin ka sheekay kun dawaco waa taqanaade waa dugaga mid uu tabar yar way taqana waxaray meelahaas ku rafisa iyo wixii meelaha u haada tabar ma hayso kun dawaco uu hogaaminay libaax buu madaxweynaha hogaaminay libaax way laakiin ciidanku wada dawacooyin iyo waxa ay salay buu kun libaax oo dawaca madaxweyne u tahay ciidanku waa libaaxiyo waxa soo hogaaminaya madaxweyne dawaca ciidanka kale waa maxay waa dawacooyin laakiin waxa hogaaminaya libaax banaanka marka la salay laad maxay food isgali saasa loo kala turay madaxweynaha dawacadaha libaaxihi ciidanka waa jabeen dawaca faraqsat wuxuu marka muslimiintu maanta waa sidoo kale muslimiintu shacabkooda waa shacab nool oo diinta inay u dagaalamaan wax kasta u horaan dhiyaan iska warqaba way laakiin waxa alla ku imtixaanay dawacooyin baa hor fadhiyo waxa madaxweynaha maanta dawlad kulli waa dawacooyin nin kasta markuu gaalka u tago fursan bush bay wada baryahayaan waa taqaanaad kulli waa dacs wada nadal way aan shuqul ku lahayn markuu muslimiinta aafada ku dhacdo shucuub nool way oo libaaxiya ah laakiin madaxa waxa ka haysa dawac laakiin gaaladu wuxuu yiri kulli waa shacabkooda waa dawacooyin ruuxa dumaanta soo ordo Toronto waa laga qaxaaya shacab jira ma abar waa baaba ibarkood way laakiin waxa musiiba waxa hogaamiyay buu niman nool madaxweyne adag oo waxay doonayaan garanaya oo xisaabtamaya oo ragga iska dhicinay oo codkooda la cunayna ba hogaamiyay buu laakiin shacab ma haystaan هذا رتيمبا ونفس الشيء لكن المسلمين شعوب تضوا نوشاي لكن وحلقوا امتحاني دقوم إن عصية دبالو عبد الحميد بحكي شيء عبد الباري عضوان بقر وحام بغيب الوزير وزراء عبد التجيبون وحكوا يا اللي بيقول لي سافرتني لما مسقلط أفرتني لما مسقلط بقول يا اللي بيقول واشق يقولوا دقنيا وزير كي يقول يسوي نتنياهو بواجه هيستي كأهم إسرائيل يهودا كأها رئيس الوزراء كأها يو بوقي وحنا قلت لي بقول جوري إسكافيلا ير صدق مسقط بقول تعالى بقول ودقنيا كاسة كل وقت حكومة كأرك كنا وحاوي على أفرتين لو مسقلون شغل ودقنيا تواتي لو قلت لك هبل تمك واحد لعنا على الدقة تن أنت وي وأنه مرك وح عني وح عبية وح سيد ده يكفكر هيب مصيبة صوبة تذكر إسجاري معايا تذكر اسمك جاري مرك مصيبة وي على إما مضلين صدق قيبود وركان صوب قابية علماء حن iyo cubaad xun iyo madaxweynayaal xun way saddex raaway ala imal mudallin nin cilmiga laga gaday laakiin liito cilmigiisu waa caalim su'a iyo nin taliyo xaakimo madaxweyne nin liita ah iyo nin caabid oo zaahid oo cibaadayso laakiin umadu ay ku daganto cibaadadiisa laakiin khuraafi iyo mushrik ah saddexdaas la iska ilaaliya caalim xun caabid liita madaxweyne doqon oo dabaal oo nacasa oo wuxuu garanay aan jirin oo musqalaha badan iska ilaaliya saddexdaas iska ilaaliya وإنما أخاف على أمتي على إما أقبقها المضلين أمضى الدمنية وإذا وقع عليهم السيف دجال هذا المسلمين تكب اللوذنة لم يرفع إلى يوم القيامة إلى قيامة كرلو قادم مايو بعدما عثمان بن عفان الذي ظلما لقد لي خوارج زلين إيا المشركين إن من أهل فتنة إلى يومنا هذا مسلم ديجي سودا ظلم لقد لمواي يعني نبي وحوش شيء مرة ضي بالله وتهوش إلى قيام ساعة ويسعون الساعة لكن ما هوش مربى هلا جوشيه وحال قبان كتر قبان في نذا هر استاجي
inay hawshaa dhacayso waa arrin kawni oo qadari oo nabigu inoo sheegay wax xuguma ku dhisanna ma uu jiro sharciyan adigu waxaa ku saaran inaad dhiidhido dagaalanto ummadda khayrka u sheegto xumaha aad horeysta inta tabartaada ah fattaqu llaha ma statactum amaa hawsha way dhacaysaa bale anu iska fadhiisan hawsha ma aha ayib walaa taquumu saacatu saacaduna dhici mayso ka dul dhici mayso saacaddu waa qiyama loo jeeda walaa taquumu lqiyama wey walaa taquumu saaca qiyaamaduna dhici mayso xataa yalxaqa maxalu shaahidku waa kana xataa yalxaqa ilaa ay haleelaan xayun qabiil oo min ummati ummadayda kamida bilmushrikiina ay haleelaan ummadda muslimiinta ah ee ummat lijaaba ah qayba kamida iyo qabaa'il kamidaba u guuri gaalada ku biiri waa macquul in loo jeedo way u guurahayaanba waxaa kaloo macquula lixaaqu inuu yahay lixaaq macnawi ah oo xagga sifaadka waxay gaala sameeyaan bay samaynayaan shirkay gaalo ku dhacday ku dhacahayaan say gaalo u gaalooday u gaaloobahayaan say u fikiraan bay u fikirayaan waa macquul imaa inuu yahay lixaaq iyo luxuuq iltixaaq macnawi ah wa imaa inuu yahay iltixaaq xisya oo way u guurahayaan sida muslimiinta maanta yurub iyo galbeed ee gaalo u qaxaaya iyagoo jecel muslimiintana la coloobaya ama ninkii dan kale iyo u tegay maxaan ku dhahay nabadgelyo siyaasadeed iyo dhibaato kale u tegay waa iska gooni baan filahaya waxataa tacbuda ilaa ay caabudo fi'aamun kooxo oo min ummatii kamida alawthaana soo ma aragti qabiilo ummadayda kamida mushrikiinta ku biiri doona fi'aam yani dawaa'if kooxyo waaweyn iyo intaasoo shay oo kamida min ummatina waxay ku biiri doonaan وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان إلى أمة إذا قيبك مننا أي صنم كعابدان طيب حديث كله في صحيح مسلم قرن حديث عائشة لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى وحديث برنك يا لوي في صحيح مسلم أدونك رقمن مايو إلى لاتي عزى دب لو عابد لاتي عزى زوغ النبي قال ما دغال ما بابينين دب لو عابد دونا دب لو نقون دونا في صحيح مسلم لما كن سغال بقى تدبر رقم كاولا وإن ورشاني سيكون في أمة وحكا دحدعي دونا كذابون 30 صدم بين ليال صدم بين ليال با كدحي دونا يعني كذابون صدم بين الله كو افيو نما شيغان دونا سو بخي دونا كلهم ضمانته صدم كا بين ليال maxay sheegayaan yazcumu annahu nabi صدم كما مid ka socona nabi ah أحمد القادياني بس كجوا أحمدين قالوا meesha dhoma qaadiyaan gaalo baa'iyintu gaalo way int hindiya ugu badan bariga eeshi intuu mutanabbi u ka soo boodo sanad kasta lama waayo مدوبنا النبي وانا اقول لما وايو طيب نبي محمد وحال هوشا وانا خاتم النبيين انا وحان النبي محمد بناندك يا قردنبيسك انبيada لا نبي بعدي نبي قدن بي ما وجiro ولا تزال طائفه نبي محمد بليدا sheegtay oo ah in umada qayba kamid ay gaaloobi doon oo mushrikiinta lagu biiri doono oo la tiicisa dib loo caabudo doono oo kooxaha muslimiinta ay awthaanta ku noqon doonaan asnaamta ku noqon doonaan wal wathan qabriga lagu ictikaafaya wax kala araadin maxaa xal ah khayrkum ma baabi'i doona maya walaa tazaalu taa'ifatu min ummati ummadayda koox kamidana ka zuuli mayso cala alxaqi mansuuratan inay xaqa ku taagan tahay weliba iyadoo loo gargaarahay nasrigu ma inaad ragga ka adkaato xagga seef ahaan iyo dagaal nasrigu waxaa weeye mabda'aad inuu taagan yahay xaggana aad u sacyinayso ummadduna qaybo ay qaadanayso baadilka dunida hadheeyena uu ku qaban waayo gaala waxay isku dada muslimiinta inay baabi'iyaan oo loo koobo oo islaamku fidi waayaba meel kasta islaam baa ka dilaaca سيدنا هذا كوسوس إن شاء الله تعالى وسترنكا مسلمين بان كهلي دونا فربضان طيب يوروب هذا ويابين وعليه كنتم كسيا صوص عدا إسلام كحون نقدر بقول كيف كنتم تكونوا يوروب هذا يبقى كله ويهم بقول كيف لا كله ويه تقريبا إذن هاو شاسة كوسوس عدا مركا كالحنان تبني ضد كل جوس هذا هو الفضح مريجي أري ما قال جوس ده لسكن نقضي وحبان باكسو بيع دونا كوبون إسلام ويكون قالوا بدونا قالنا ويكون إسلام دونا وانا سيدا سعوتو لا يضرهم اوسن دبينين من خذلهم روحي هيلو وكبحو او قرب وقليله ولا من دول اوسن من خالفهم خلافه حتى ياتي امر الله الى امر ربي ما دو اي المسلمين بابان اللي ادام تبارك وتعالى محل شاهدكم مركه وشوح وجهدا قيبتان ضمبي ku saabsan muslimiinta qayba kamid inay gaalooba hayaan buu sheekhu ka hadlaya fihi masaa'il hayno jooga hada billahi at-tawfiq